dhismahan oo ku fadhiya dhul cabirkiisu yahay 18 mitir iyo 24 mitir dhismahani waa guri bangalaha waxaanu ka dhisaynaa magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Macallin Haaruun xaafadda Hodan Hills haddaba dhismahan specification-kiisa iyo faahfaahintiisa haddaynu gallo dhismahani waa guri balooda wuxuu ka kooban yahayna waynu arki doonaa hadii ilaahay masha Allah laakiin muuqaalka guud ee dibadda marka hore nala daawo qaabkan u dhisayn garaynay quruxdiisa coloriskiisa ma garanaysaa morphiska iyo waxyaalaha aan ku sameynay daaqadaha waaweyn barandaha halka gaadhigu uu gelayo runtii waxa weeyaan cid kastoo aragtaa way la ashqaraaraysaa sidoo kale gurigan intaad aragto deyrkiisa waa dhismo simple haddana runtii aad iyo aad qurux badan oo aanu in badan ka shaqaynay dhammaan qaybihiisa kala duwan ee gurigan haddaba waxaynu geli doonaa guriga gudihiisa ayay geli doonaa imika insha Allah taala wuxuu leeyahay baranda ballaaran marka koowaad aad sii socotid oo guriga sii gelisid waxaad arki doontaa barandaha ballaaran oo runtii qofku iskaga nafisi karo ku shaqayn karo magaranaysaa iskaga caweyn karo haddaba haddaynu hore u soconno oo guriga gudihiisa gallo albaabkan ayaad ka gelaysaa marka koowaadba albaabkan wuxuu noqon doonaa albaab qurux badan marka aad sidaa u soo gashid halkani waa koridorkii ama waa main koridorkii guriga laga soo geliyay waad arki kartaa quruxdiisa qaabka loo qurxiyay sidoo kale gurigani waxyaalo cajiibka ku yahay waxa kamid ah qayb waxaan ugu talagalnay martida qaybna xaafadda qaybtan aan joogno qaybtii martida waa qaybtii hore koridorka fadhigiisii iyo halkii ka soo galay waa halka hore albaabka hore ka soo galay albaabka soo kana waa kii fadhiga laga gelayay martida waad aragtaa leerarka iyo dhammaan qaabka loo qurxiyay waa koridor waasaca hadda waxaanu geli doonaa qolka fadhiga ee lagu talagalay ragga ama martidu inay isticmaasho wow ma sha Allah ka soo qaad gurigani inuu yahay gurigaagii ka waran wixii talaa aad ku kordhin kartaa wixii laga bedelayo iyo waxaad jeclaan lahayd ee asleeda waxaas ka maqanba qaabkan ayaan insha Allah ugu talagalay inuu dhismahan u ekaado waa qolkiisa fadhiga oo ragga daaqad weyn buu leeyahay laba daaqadood kale iyaguna qurux badan buu leeyahay wuxuu leeyahay TV decoration kii ama halkii TV-ga aad loo qurxiyay marka waa fadhi iyo cunto isku furan sidoo kale xagga sare aad ayaan u qurxinay sida chipsinka gidaarada dhamaantii way sidoo kale waxyaalaha cajiibku qolkan leeyahay waxa kamid ah wuxuu leeyahay faraxalkii oo tusaale ahaan haddaad rag marti qaado inaan xaafadda dhex qaadin wuxuu leeyahay faraxalkan buu leeyahay sidoo kale wuxuu wataa suuligiisa iyo haddaad hore u sii socotana suuligan oo loogu talagalay martida ayaa jira isaguna way kani waa qolka waynu ka baxaynaa imika waxaynu ku noqon doonaa insha Allah taala guriga qaybihiisa kale ayaynu tegi doonaa imika way daaradii ayaan soo galay halkan waa argo waa guriga kala qaybinaysa qaybta martida iyo qaybta hore way ma sha Allah koridorkiisu sidan buu u samaysan yahay ama daaradiisa dambana sanbay u samaysan uu qaybsan yahay qolka mid kamid ah ayaynu geli doonaa hadda waa guri runtii qol kama soo horjeedo waanu kala yaani qarqarinay ama waan kala qaybinay halka waxa laga gelayaa waa fadhigii hablaha ama dumarka ay fadhiisan lahaayeen ayaa halka inooga soo muuqda albaabkaasni ama halka roogacsi yaalana halkii guriga oo dhan laga soo galay weeyay guriga furana waxa weeyaan fadhigii loogu talagalay haweenku inay isticmaalaan albaabka kale qudhiisa waxa looga baxaya surface-ka qolkan baynu galeynaa qolkan qolalku runtii waa isku mid qolkan haddaad aragtid qolalka kalena waad aragtay tusaale ahaan oo kale qolkan hadduu yahay qolkii caruurta qaabkan oo kale aan dhisayn garanay waa qolka quruxda badan leh waa waafi yacni laba sariiroodna waa la dhigi karaa imka sariir weyn baa taalo ma garanaysaa iyo kabarkii iyo wixiisii oo dhan baa yaala iyo miskiisii marka midka qaab noocan ka duwana dee waa loo dhigi karaa waan ka soo baxaynaa qolka isaga imika haddana waxaan gelaynaa suuligan waa suuligii dadweynaha ama suuligii dadkuna wada isticmaalayeen weeyey oo nagu talagalay dadkuna iska isticmaalaan waa suuli waasaca meedhashadii buu leeyahay faraxalkii buu leeyahay wax kasta waa dhammaystiran yihiin waxaanu ku dhow yahay fadhiga haweenku isticmaalayaan ama lagu talagalay dumarku inay isticmaalaan way waa kan fadhigii ayaan soo galnay imika maasha Allah fadhigan waa fadhigii guriga gudihiisa hore ku yaalay familiga lagu talagalay ama haweenku kale inay isticmaalaan aad buu qurux badan yahay runtii daaqada waaweyn buu leeyahay decoration baan u sameynay bal ka waran gurigan wuxuu leeyahay laba fadhi saad aragtaan kan imika aynu joognaa iyo kii hore aynu hore usoo aragnay kana qaabkaas ayaan dhignay coloriska decorationka sare chandelieriska iyo leerarka waxyaalahaas aanu xidhnay wax waynu ka bedeli karnaa anytime laakiin qaabkan ayaanu hadda u dhignay waana nala arki doontaa haddii ilaahay idmo insha Allah taala haddana kan waa ka bixi doonaa waxaynu geli doonaa qolalka kale aynu gelaynaa soo soco oo inaga ka soo baxnay kaasina wuxuu ahaa fadhigii haweenku ahaa ama fadhigii dumarka waayahay
xagga rooga cas mar walba waa halkii guriga laga soo galiyay albaabka muraayada ah waa albaabkii banaanka markii guriga soo gashid albaabkaasi waa albaab labaad oo guriga looga bixi karo wuxuu ku hor yaalaa ama ku dhow yahay qolka hurdada halka laga galo imika halkan ayaan ka galaynaa qolka hurdada qaybtani waxa weeyaan marka soo gashid midigta waxa ka qabanaya qaybtii maryaha ama closetkii waa closetkii suuligiisana waa kan waa suuliga hurdada kani waa suuli waasaca oo ma sha Allah qolka hurdada laftarkiisa dad gashid waa kan isaguna ma sha Allah aad iyo aad runtii qurux badan yahay sariir weyn oo dhabala taala aad iyo aad baan isagana uga shaqeynay qaabkan oo kale ayaan jecel insha Allah inuu ekaado kana kabarkiisii wixiisii oo dhan ayuu wataa macmil wad ka eegan kartaa ama wad qiyaasi kartaa qolkan oo ah qolkaagii hurdada wixii laga bedelayo iyo wixii lagu soo darayaba tala ayaad ku yeelan kartaa way haddana waxaan galnay qol kale qolkan isaguna waa qol kale oo hurdo ah isaguna marka hurdooyinka guriga runtii dhamaantood decoration ayaan ku sameynay design-kan oo aad bay u qurux badan yihiin dhamaantood qol waliba aad bay u qurux badan yahay kana waa qol kale isaga laftarkiisu oo ma garanaysaa isaguna guriga uu kamid ah aynu galay isagana waa kan qolkani waxay badan yihiin 4x4 ama 4x4.3 meelahaas ay u badan yihiin waa qolal wada waasaca laba sariirood ama sariir iyo kabadhadeeda waxaas oo dhan ba ayaa la dhigan karaa oo laba qof baa markii wada deegi karaa saddex baa wada deegi karaa haddii loo baahdo aad waxay ku xirantay qofka iyo family-giisa marka hurdooyinka marka la isu geeyo waa adigu 5 weey tanna waa kijadi runtii waa kijada qalabaysan aad ka yaad ka quruxda badan leh isla markaana waasaca oo sidoo kale waxa aan halkan ka muuqan oo iyaguna ma garanaysaa ku jira laundry suuligii iyo ma garanaysaa qolkii martida inta way ku jiraan marka qaabkaas ayuu dhismahan u samaysan yahay runtii waa dhismo aad iyo aad qurux badan marka la hadaan dhismaha banaankiisa idinku celiyo waa kan dhismihii aynu gudihiisa soo daawanay waa kan wuxuu leeyahay harkii gaadhiga ama halkii gaadhigu galiyay ayuu leeyahay برنتها بلارن بوليه طاقتها واسعة بوليه معمل كومنتيجا نوع ريب وحي طلعة أما با أتشعل الله يعني اسمه كسو كردنو أما با أنكر ريبنا عاد يا مسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدا وبهنتين اسمه إن لقول لسه أما با إن لقول لسه إنجريه واحد نقول لسه حرير كرتا لامبردا شاشة القرآن